wasiir ku-xigeenka caafimaadka isuduwaha gobolka Saaxil agaasimaha cisbitaalada iyo guddiga caafimaadka gobolka Saaxil ayaa kormeer ku sameeyay dhismayaal cusub iyo qaar dib u habeyn ka socoto qalab caafimaadna kala wareegay hay'adda DRC oo wakiilka ah UNHCR waxaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay dib u habeynta iyo dhismayaasha cusub agaasimaha cisbitaalada magaalada Berbera Dr. Caasha Aadan waxaana hadaladeedii kamid ahaa iyo dib u habeyn waan soo aragnaa malaynaya dhismayaashii waa soo aragteen iminkana waxaynu nimashii dhimarka waa isbitaalkii dhimarka waxa ka socda dib u habeyn ballaaran oo ay u badan tahay wixii outpatient qabanaya ay dawada dibadda ku qaataan si aanay waxyeello uga soo gaarin dhismaha meesha ka socda dhismaha qaybtiisa u weyn waxa weeye in la ballaariyo hawada meesha dhagaxa daaqadaha yar la kordhiyo in dhammaanba la bedelo gudaha iyo dibadda deeqdan maanta la siinayo cisbitaalka Berbera iyo dadweynaheeda waxa kaloo nala joogaan u mahadnaqaynaa UNHCR iyo DRC-ga labadaba waanu mahadnaqaynaa isuduwaha caafimaadka gobolka Saaxil Dr. Bashiir isagoo oo ka warbixiyay adeegyada caafimaad ee ay ka qabtaan guud ahaan gobolka Saaxil waxaana hadaladiisa kamid ahaa hay'adda UNHCR oo uu hogaaminayo halkan shirkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo DRC iyo madaxda inaanu la wareegno qalabkan oo wasiirkuna goobjoog u yahay qalabkaas oo badan qalab shaybaadh agabkan shaybaadhka lagu shaqeeyo oo badan isbitaalkana ka anfici doona anagoo rajeynayna inaanu wax ka badan oo iyagana aan helo labada hay'adood ee wada shaqeeya run ahaantii isbitaalka Berbera culays badan baa saarnaa muddadii ugu dambeysay shaqo badan buu wadaa oo ka shaqeeya wuxuu bilaash ku daweeyaa dadka qaxoontiga ee laga keeno Yemen ka yimaadeen Soomaalida iyo Yemenida leh culayskaasi 6 bilood bay UNHCR naga taageertay wixii ka dambeeyay isbitaalka Berbera iyo maamulka gobolka iyo caafimaadka iyo wasaaradda ahaanba dadka wax loogu qabtaa dadkaasi waa dad wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa kormeerkiisan u soo maray waararka bukaan-jiifka cisbitaalka dhimirka waararka hooyada iyo dhallaanka warbixinana ka dhageystay shaqaalaha caafimaadka wasiir Cabdinaasir ayaa ka warbixiyay kormeerkiisa isagoo u mahad celiyay hay'adaha DRC iyo UNHCR sida ay ula shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka waxaana hadaladiisa kamid ahaa safarkan shaqeey maanta aanu ku nimi gobolka Saaxil magaalada madaxdiisa magaalada Berbera run ahaantii waxay daaran tahay inaanu u kuurgalno adeegyada caafimaad ee ummadda ku nool ee gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera inaanu u kuurgalno adeegyada caafimaad xaaladoodu sida ay tahay alxamdulillah rabbil caalamiin waxa u soconay oo kale inaanu aragno mashaariicda waaweyn xagga dhismaha u badan ee ka socda gobolka inaanu iyagana aanu u kuurgalno xaaladooda halkay marayso iyo inaanu maamulka caafimaadka gobolka inaanu kala shirno wixii caqabado iyo fursado jira ee lagu kaabi karo sidii loo horumariyo adeegyada caafimaad ee ka jira magaalada Berbera inaanu iyagana la goobjoog u noqono aanu kala qayb qaadano waxa xusid mudan dadka qaxoontiga ay marka ay soo gaaraan dhul aan lahayn sida Soomaaliland oo kale ay u yimaadaan marka amniga laga tago oo wixii soo eriyo calaadaha laga tago amniga ay helayaan waxa ugu horeeya u baahanayaan waa in caafimaadkooda iyo daryeel caafimaad inay helaan Kamite Ismaan Ali Real TV magaalada Berbera